qoraal kooban oo lagu daabacay bogga Twitter-ka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dowladda federaalka Soomaaliya ee NISA ayaa lagu sheegay in koox ka amar qaadata hogaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Diiriye Abu Cubayda ay degmada Bu'aala ku dileen madaxii hore ee ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa amniyaadka gobolka Banaadir Cumar Macalin Mucaawiye. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay xabsiga dhigeen madaxii howlgallada amniyaadka kooxda Al-Shabaab ee gobolka Banaadir oo lagu magacaabi jiray Cumar Maxamed. saqdii dhexe ee xalay ayaa Bu'aala lagu dilay Muuse Macalin oo horay isaga casilay madaxii amniyaadka gobolka Banaadir ee Al-Shabaab. sidoo kalena waxaa xabsiga la dhigay madaxii howlgallada amniyaadka gobolka Banaadir Cumar Maxamed Yaasiin iyadoo la fulinaya amarka horjoogaha maafiyada Al-Shabaab Axmed Diiriye ayaa lagu yiri qoraalka NISA.